كفتك ماشي على الجلسة قدوميها مركو قفتي يعني صوعي قدومي كفتا منها waxaan gudoomiye waxaan maqlay mooshin baa la qabtay see wax yihiin markaasuu yiri way hor yaalaan mooshinka waxaan ku yiri see weegyahay wuxuu yiri balaan kugu soo celiyo warqadii saas u rogay way ugu soo celiyo wuxuu yiri nambarkaas weey oo yaa ka dambeeya waxa ka dambeeyo dad waalaha ah oo la yiraahdo qabyo oo waxaan qabyada isla ogeyn waa qabyo waxaan ku yiri bal fiiri qabyo waxaan ku ogeyn wax walba haaf inay uga tagaane bal fiiri hadduu mooshinka dhan yahay in kale dib uu fiiriyay wuxuu arkay saxiixiyo la saxiixay 2017 tuhunka la qabana uu yahay dhamaadka 2018 waxaan ku yiri marka haddee see isu waafaqaysaa wuxuu yiri waxay arkayeen wax soo socda sanadka bacdi waxaan ku yiri khalad kalma ku jiraa waslognahay waxa laga yaabaa qabyo badan meesha ku jirteen waa fiiri wuxuu yiri saxiixa waxa ka maqan dateski oo waxaan ku yiri see dates qofku uu ku iloobay hadduu qofka saxiixay see ku iloobay waqtiga uu saxiixay waxaan ku yiraahday maxaa kale oo ku jira wuxuu yiri dad kale oo waxa jira oo xanuunsan oo dibadaha jira oo aan ka warqabin waxaan ku yiri marka waayahay gudoomiye maxay tahay waxaan see wax u jira motive wuxuu yahay maxaa laga dalanayaa waxaan illa waa ba sheegtay waa qabye wuxuu yiri hore wuxuu yiraahdeen qabye ninkeeda dhameystira waxaan ku yiri waayahay waa qabye ninkeeda dhameystireen taas 2016 soo ma ahayn wuxuu yiri maya waa 2019 waayahay maxay rabaan marka ma weydiis waa weydiiyay yiri waxay rabaan waxa kamid ah gudiga hanti soo celinta in lagu daro ay iyagu maamulaan inay ka shaqeeyaan soo dhawaanshaha shacabka iyo dawladda inay dhamaystir ku sameeyaan wax Allah wixii heshiisii hore u jiray in maxaa ku raada kanaalkan sheegay ayaa dhaway oo wabi ka soo fatahay in la furo beerta loo daayo waxay rabaan u yiri inay xoojiyaan ama ka shaqeeyaan xoojinta hufnaanta dhaqaalaha waxay rabaan u yiri in ay ka shaqeeyaan oo ay xoojiyaan mushaar bixinta tan ugu dambaysa waxay rabaan u yiri inay sharafka ummadda Soomaaliyeed soo celiyaan waa mahadsantiin wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh